Can we have a small face like baby face? Kusoo dhawaada walaalahayga qaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay dhammaantiinba khiyaarteeda qaaliga ee kamid ah walaalahayga qaaliga aad salaamo sharaf iyo qaalibad ugu leediin. Maanta topigeena wuxuu kamid yahay how can we make our face smooth? Sideen uga dhigi karnaa wajigeena waji sibiil waji nadiif ah, sideen haysan karnaa ayuu maanta topigeena kamid yahay. Kusoo dhawaada hadaa rabto wajigaaga inuu sibiil ku noqdo like baby face yeelatid advice-ka maanta aan channelkeena ka bixinayno. kusoo dhawaada channelkeena ku cusubta subscribe awalan hadaa maxay ahayd marka ugu horeysa advice-kan wuxuu ka bilaabmayaa intaan wajigaaga full dhaqan waa inaad farahaaga hand wash iskaga meedhi ama saabuun waxaad haysatid iskaga meedhid ood farahaaga nadiifisid. mawduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay topigeena sidee maanta wajigeena u heli lahayn waji nadiif ah, waji smooth aan u heli lahayn. marka taabiyadan la soco buugi qalin soo qaado. marka kolka ugu horeysa waa inaad wajigaaga iskaga meedhid hand wash soo iibsatid ama maxay saabuun soo iibsatid. kolka ugu horeysa aad farahaaga dhaqdid, markaad farahaaga nadiifisid ee jeermis wixii soo tataabanayso oo dhan aad ka soo nadiifisid ay hand wash haysatidna iskaga meedhid markaas kadib baad wajigaaga dhaqaysaa. wajigaaga markaad dhaqaysidna waad u fiirsanaysaa waayo wajigaaga waxa weeyaan waa meelaha sensitive-ka weeyaan. maxay ahayd hand wash yaashan meesha ni soo dhigo dhanbo kulli guri kasta guri aan hand wash laga helin ma jirto. hand wash waxay ka dhigan tahay saabuunta liquid-ka ee la iskaga meedho gacmaha ay ka dhigan tahay. markaad saabuunta liquid-ka ee gacmaha iskaga meedhid kadib wajigaaga ayaad dhaqaysaa. u fiirso markaad wajigaaga dhaqaysidna biyaheed ku dhaqaysaa, haddana sideed u dhaqaysaa wajigaaga mar alle markaad dhaqaysid waa inaad ku dhaqdid maxay ahayd face wash waxaad haysatid ama maxay ahayd saabuunta ku naasibaysa waa inaad soo raadsatid ood ku meedhid. talabaad wajigaaga markaad dhaqaysid waa inaad ka ilaalisid biyaha qasabada kuleyl. biyaha qasabada kuleyl wajigaaga wax kasta u koozin karaan, waxyaabo badan ayay ku koozin karaan, dhibaato badan ayay ku keeni karaan, casacsan bay ku abuuri karaan. wajiga wuxuu ka noqon karaa damage ku noqon karaa waayo wajigeena waxa weeyaan waa meelaha jirkeena sensitive-ka ayuu ka mid yahay. marka waa inaad ilaalisid oo damage-ka wajigaaga waxa wixii damage u keenay oo dhan inaad ka ilaalisid. biyaha kulul wajiga ma fiicno, qasabada ay biyo qandaca ama biyo caadi ah oo qabowba waad ku meedhi kartaa wajigaaga. markaad wax ka meedhaysid dufan loo kaleeto like vaseline to kale markaad ka meedhaysid waad isticmaali kartaa oo iyakana waa iska qancin kartaa in yar qandaca ka dhigan kartaa. marka face wash kaad haysatid ayaa adiga isticmaalaysaa. markaad wajigaaga aad dhaqaysid waad u fiirsanaysaa maxay wixii uu isticmaali karo ayaad ku dhaqi kartaa. dadad uu sensitive dadad uu ka leeyahay baa jira allergy ka leeyahay face washka, dadad uu saabuunta allergy ka leeyahay baa jira. hadba wixii ku naasibay waa inaad wajigaaga u soo eegtid, wajigaagana waa inaad fiirsatid inuu dry yahay in oil yahay. hadduu oil yahay waa inaad ku dhaqdid wax naasib ee wixii oilka lagu dhaqayay. hadduu dry yahay wixii darayga wixii lagu dhaqayay inaad ku dhaqdid. insha Allah biidhnillaahi alkariim wajiis waxaan helaynaa smooth ayaan helaynaa waji sibiila like baby face baa yeelanaysaa. haddaa wajigaaga isticmaalkiisa iyo macaamulaadkiisa u fiirsatid like baby face baa yeelanaysaa. marka insha Allah sidee baan maanta baby face u heli lahayn 3 xitaa baan soo marnay. biyo kulul la iskaga dhaqin. marka ugu horeysa waa inaad gacantaada iska dhaqdid, marka iska dhaqaysid waa inaad u fiirsatid waxa ku dhaqaysid saabuun aad ku dhaqaysid. biyaha kululna waxa uu keenaa damage badan waa la ogyahay inuu wajiga maxay ahayd casacsan ku beerayo oo maxay ahayd wajigaaga uu noqonayo waji si kala noqonayo oo smooth uu noqonin waayo meeshan waa sensitive. biyaha xoog kululina ku meedhid maaha. insha Allah walaalihiina kaleetana la sii share gareeya. hadda channelkeena ku cusubtay channelkeena faa'iido channelkeena waxyaabaha naturalka laga helay ku soo dhawow subscribe taabo kamleek on ka dhigo sidaad ula socotid waxaan soo gelin oo dhanba sidaad ula socotid. wayna laga daayo wajiga in lagu dhaqin maxay ahayd biyaha kulul oo biyaha qandaca oo in yar qandaca u furatid. marka biyaha kulul waxay kugu sababayaan ayaa maanta ku soo gelinayna. biyaha kulul waxay kugu sababayaan wajigaaga gudguduto, in wajigaaga haar galo, in wajigaaga ku sababo maxay ahayd damage, in wajigaaga ku imaado maxay ahayd cascasan gudgudud indhaha hoostooda meel kasta ku imaado. markaasoo haddaan rabno wajigeena haddaan inaan yeelan rabno smooth face
oo waji qurux badan waji dhalaalay ina yeelato hadaa rabtid waa in iska ilaalisid waxyaabaha wajigaaga damage u yeelaya waa inaad soo iibsatid maxay ahayd waxyaabaha wajigaaga naasibay aad garanaysid in wajigaaga ku naasibayo aad garanaysid in adiga oil ba tahay adiga daray ba tahay waa inaad labada horta kala garatid soo sida wajigeenu nooga qarxin oo damage u yeelan waa casasaan u yeelan oo gadgaduudmin oo foolxumo noqonin oo smooth face u yeelano وين إلى حتى شكمان كأكو أما تاول أما شكمان أما توال سو تقانتين با محيهد أدكو إنجليزي سيد وين وهذا كون نظيفة ومركز تلص عتيد من نظافة دي تلص عتيد وكو سيجا لحين إنه هذا كون نظيف وآدي نظيف إنه هذا أو فرستيد ومر ولي بتاول كويجا كو إنجليزي سيد كو مسقش إسكسية لينو هان كون نظيف وديار ستي أو دور حبد maxay ahayd aad ugu tala gashay wajigaaga inuu ahaada way wajigeena waa sidaan uga dhigi lahayn maxay ahayd smooth uga dhigi lahayn like baby face uga dhigi lahayn insha Allah qalin iyo warqad soo qaado channelkeena ku soo biir subscribe ka taago kambalelkana taabo saad ula socotid casharadena markaad engejinaysid wajigaaga waa inaad u fiirsatid inaad xoogsa ugu rugtid marada ma waa inaad sidaa iskaga dul dhigtid weeyaan like wajigaaga sidoo uu xumaanin oo casasaan u yeelanin marka walaalahayga qaaliga insha Allah maxay ahayd ku soo dhawaada channelkeena walaaliina kala noo sii share gareey inkana u fiirsada maxay ahayd waxaad isticmaalaysiin u fiirsada insha Allah biidna Ilaahi الكريم wad ka faa'iideysan doontiin hadaan ugu cusubtahay like baan ka sugaynaa comment haduu ku cashibiyeysiina share gareey walaalahayga kala sii share gareey please subscribe our channel hadad ku cusubtahay kambalelkana taabo saad ula socotid casharadeena okay